qoyska nin dhalinyaro oo ganacsadaha oo Soomaaliya ka soo jeeda magaalada Mombasa oo lagu magacaabo Zakariya Kamaal Abasheekh oo ay weheliyaan garyaqaanka qoyska iyo weliba sidoo kale hay'adda u dooda xuquuqul insaanka ee Muhuri ayaa waxa ay codsadeen inay cadaalad u helaan wiilkan oo laga afduubtay bartamaha magaalada Mombasa bishii aanu ka soo gudubnay shanteeda. aabaha dhalay wiilkan ganacsadaha ee lagu magacaabo Zakariya Kamaal Abasheekh ayaa waxa uu sheegay in wiilkiisa oo laga afduubtay bartamaha magaalada Mombasa wadada Diga Road ay la yaab ay ku noqotay in hay'adda qaran ee sirdoonka ee Soomaaliya ee NISA ay sheegtay in wiilkan la qabtay gudaha Soomaaliya isagoo doonayay inuu ku biiro kooxda ururka Al-Shabaab, taas oo uu sheegay inaysan waxba ka jirin isla markaana ay codsanayaan inay hay'adaha ammaanka ee Kenya iyo Soomaaliya ay baaritaan dheeraad oo arrintan la xiriirta ay ku sameeyaan. ayaa la qabtay muddo 5 bil ka hor oo lagu tuhmay inuu la shaqeeyo waladan Al-Shabaab. kees baa ii socday maxkamadan Mombasa 2 bil buu xirnaa ugu yaraan 10 jeer waa la keenay maxkamadda dib loo celinayo oo wax cadeena aysan hayn booliiskii. markii u dambeeyay waxaan ku soo bixinay boon 1 milyan boon buu dibadda ku joogay. marka hadduu alla ku rooyahay isagoo jooga isniin kastana wuxuu tagi jiray qoladan antiteeraha oo iska xaadirin jiray. isniintii buu soo xaadiriyay, arbacadii waxaa laga qabsaday faras magaalaha Mombasa. 2 gaari oo ciidan ah ayaa ku qabsaday faras magaaladii Mombasa isagoo gaari saaran isaga iyo saaxiibadii isaga kaliya ay la baxeen. isla saacadii report baan booliiska geynay, antiteera report baan geynay, meel kasta CID meel kasta aan u cararnay. waxay ku leeyihiin annaga ma aha cidii qabsatay ma naqaan. muddo 20 iyo dhowr cisho ah ayuu maqan yahay. hadda miidiyihii waxaan ka aragnay inuu joogo wiilkii, in loo gudbiyey Soomaaliya, uuna yahay nin Soomaaliya laguna qabtay isagoo dhumaalaysanaya Soomaaliya. wiilkana Soomaaliya lagama qaban, Mombasa faras magaalaha laga qabtay. Kamaal Abasheekh oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in wiilkiisa uu ka ballansanaa maxkamad ku taalla magaalada Mombasa 22 bishii aanu ka soo gudubnay ee September, isagoo sheegay inay ku socotay dacwad la xiriirta inuu agab ka iibiyay dad lala xiriirinayo inay xiriir la leeyihiin kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. waxaana uu sheegay in qalabka wiilkiisa lagu eedeynayo yahay qalab suuqyada caalamka ee online-ka yaala isla markaana uusan ahayn agab dambiya ka ganacsigeeda. ninkan waxa weeye nin ganacsada ah, China wax ka soo bartay, dukaan yar oo meesha aan ku leeyahay. Soomaalida dhan buu u adeegay maadaama isaga luuqadii China yaqaan. marka waxyaabahan iyaga ay ku eedeynayaan waa wax aniga aan dukaankayga ku gado oo yaaliin wax kontrabaana oo halisa. warkii siday u buunbuuninayaan Soomaalida ay leeyihiin konteenaro keenay waxyaabo qarxa ku jiro oo waxyaabo dadka lagu laayo keenay wiilkan ay leeyihiin wax ka jira ma aha, wax ka jira ma lahan, waa been abuur. maxaa kamid ah leedahay wax caadi ah sharci oo galay maxaa kamid ah waxaa kamid ah toosh baa kamid ah, waxaa kamid ah ooqyaalahaas, waxaa kamid ah drumkan ay sheegayaan. drumka hadda ani aan kula hadlay dukaankayga lagu iibiyaa, wax mamnuuca ma aha. marka waxaan ka codsanaynaa dadka sharafta leh ee qusaysa arrimahan inay xaq isticmaalaan, ay dib u baaraan arrintan aysan ku degdegin. Zakariya Kamaal Abasheekh ayaa waxa uu ku dhashay xaafadda Ganjoni ee magaalada Mombasa, waxaana waxbarashadiisa asaasiga ah ku soo qaatay iskuulo ku yaala magaalada Mombasa. kadibna waxa uu waxbarashada heerka jaamacadeed u aaday waddanka Shiinaha, isagoo kadibna markii uu dhameeyay waxbarashadiisa halkaas ka bilaabay ganacsiga suuqyada bariga Afrika iyo Shiinaha isku xiraa. Khalif Khalifa oo ah agaasimaha guud ee hay'adda u dooda xuquuqda aadamaha ee Muhuri ee magaalada Mombasa ayaa waxa uu sheegay inay cadaalad darro tahay afduubka wiilkaasi loo geystay, isla markaana ay tahay sidoo kale wax lala yaabo in dalka Soomaaliya wiilkaasi loo sii gudbiyo. hawa wazee wao na ndugu zao wakaenda polisi wakamsacha, polisi wasema si wao wala hawajui. Mara jana tusikie ametoka kanda nyingine, jamaa yuko Somalia. Huyu ni mzaliwa wa Kenya, amesoma hapa, nafanya biashara hapa, amesoma China, ni mtu wa biashara na mambo ya salihia ya kuleta mizigo na nini ndio kazi yake. Na madamu kesi iko kotini, lazima serikali ifuate sheria vile inavyotakikana. marka waxaan ka codsanaynaa hay'adaha qusaysa arrintan, ha noqdo Soomaaliya, ha noqdo Kenya,
inay arrintan wax ka qabtaan oo xaqa la isticmaalo xaqeenaan doonaynaa keliya xaq ninkan waa ninkeeyana Soomaali ma aha Soomaalidina waxay leeyihiin waa nin Soomaaliya wax dhawaan baan keenaynaa maxkamadda marka hay'adaha khusaysa arrimahan waxaan ku codsanaynaa sidii xaqa inay ku qaadaan qoyska Zakariya Kamaal Abasheekh ayaa waxa ay sheegeen in sharqol ganacsi wiilkooda uu ku dhacay isla markaana ay ka dalbanayaan dowladaha Kenya iyo Soomaaliya inay si cadaalad ah ay baaritaan ugu sameeyaan wiilkooda.